dalka waxaa lagu qiyaasaa xoolaha dalka ku nool ilaa iyo 50 milyan oo neef waxaa ka faa'iideysa 65% dadka Soomaaliyeed 80% waxay qayb ka yahay waxyaabaha laga dhoofiyo dalka waa qaybta ugu badan oo ay ku hoolan yihiin muruqmaalka iyo dadka reer miyiga ah waxaa laga helaa nafaqo waxtar u leh jirka aadanaha waxaa laga faa'iideystaa hargeysa oo inta badan la dhoofiyo waxaa laga helaa lacag adag oo uu dalku ku tiirsan yahay caqabado badan ayaa inaga hortaagan ka faa'iideysiga xoolahayna oo ay u horeyso dawlad la'aan keenta in aan la horumarin xoolaha iyo xoolo dhaqatada nafciga xoolaha oo lagu bedelay caano bada ah oo dibadda laga keenay cunaqabateen ku timid suuqyada ay xoolahaynu ku tiirsan yihiin iyo hay'ado difaaca oo la waayay xoolahayna oo ku xiran suuqyo kooban xadidayna inay ku tartamaan suuqyada caalamiga ah la'aanta shuruuc iyo istaraatiijiyo la saan qaadi karta oo caalami ah ganacsatada xoolaha iyo xoolo dhaqatada oo aan door ku lahayn qorsheynta qiimeynta iyo siyaasadda lagu horumarinayo xoolaha aan ballan qaadayna in xoogga la saaro sidii loo tayeyn lahaa xoolaheena iyo xoolo dhaqatadeena iyo wax soo saarka halbowlaha u ah waxaa la dhisi doonaa guddi heer qaran ah oo ka kooban ganacsato xoolo dhaqato iyo dowladda kuwaasoo ahmiyad gaara saari doono dib u nooleynta ganacsiga xoolaha si gaar ah waxaan awood loo saari doonaa in si buuxda ay xoolo dhaqatada uga qayb qaataan qiimeynta iyo siyaasadda lagu horumarinayo xoolaheena in siyaasaddeena arrimaha dibadda ay u adeegto sidii loo iibgeyn lahaa kheyraadka ugu saxan tahay haddowtan waa ka dhawaajiyey waddankan waxaa burburin doono waxaa waye corruptionka iyo musuqmaasuqa wuxuu ugu xun yahay xilligaasaan ku jirnaa waddankii la dhahaya haddaa xasuusato Russia markii xilligii kala guurka uu yahay dowladnimada ay laciifka tahay dowladdii ilaalinaysan aysan jirin ummaddana aan qabin hoggaan sax ah waxay inta badan suuragal ka dhigtaa in sharciga lagu tunto barkay qof celinaya ma laha maxaa dhacda marka waagaas Russia markay kala baxayeen oo dowladihii kala tegayeen waa xilliga ugu xun ee wax la dhici karo hadduusan jirin qof ilaahay ka cabsanaya amba hoggaan ilaahay ka cabsanayo haddii hoggaankaasi ay corrupted adigu qiyaas bini aadanaad tahay waxaad leedahay duldaleelo badanaad leedahay caqiidadeeda waa liidataa mararka qaar waxaa macquul ah hantidii qarankoo lagu dhiibay oo gacanta laguu geliyey inaad beri subaxi adigoo arkayso aad ku takrifisho barke wax kaa celihaya male cidaa ka baqaysid ma laha waa inaad marka qalbigaa ka baqdaa waa in dareenkaa ka baqdaa waa inaad adiga ka baqdaa haddii qofka marka uusan baqaynin waxaa ku dhacayo maskaxdaa tirtirmayso wixii xaaraanta ahaa caadi noqonayo maalinta lagu dhaarinaayo oo aad dhaarinayso aad leedahay aad ku dhaarinayso kitaabka qur-aanka waxaa ku dhaaranaya ummadda inaad xadin haddii marka ummadda lacagteeda iyo hantideeda aad ku takrifishaa waxay qayb ka tahay barnaamijka qayb ka tahay mataqaanaa inay ka baxdo marka waa ku adkeyn muhiimad qaas ay leedahay corruptionka iyo muhiimadda uu leeyahay aniga su-aasha ay weydiiso ah absolute waa qabaa aniga kelima waxaan qabaa waxaa la yidhahda documenti la soo saaro contract ah oo lala gelayo qaranka Soomaaliyeed oo la dhahayo aan wada saxiixano laga baxa mataqaanaa oo ugu dambeyntii yani ishiga cadaaladda ka hadashay iyo qorshaha cadaaladda maaha laba eray uguma soo koobi karo laakiin qorshihiisa waa cad yahay waa midda haddoota ugu dhawaajiye laba maraan ka hadlay qorshe cadaa jiro waan heli doono waqtigan oo qoran oo dib loogu soo noolaya cadaaladda sideeda tahay laakiin aniga waxaan rabaa aniga iyo maamulkan ka tirsanaan doono inaysan noqon dad ku hanti fala amba hantida qaranka xado hantida qaranka dhaco waxaana soo bandhigaynaa qofka ku biiraya dowladda wixiisa in la og yahay waxaa lagu aamini karo maalinta xog ka tagan la dhihi karo hantida uu leeyahay dhulkeena dabeecadiisa micnaa daad ku dhex qado